السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada maalin cusub iyo waan iswada karaa maanta waxaa rabaa inaan ka hadlo cudurka oo anxiety-ga la dhaho ama walwalka la dhaho aan runta hadii la sheego dad badan walwalkaasi ka tawadaan especially hadda ayaamahan lagu jiro where adduunyadii stresskii dhibkii batee dadka marka qof oo qabooban oo martaax ah ma jirto qof kasta way walwalaysaa waa la kala daran yahay dad waxaa jira walwalkooda zaa'id xad ka baxa uu yahay oo heer waxaan gaarsiisan daawo inay qaataan ama therapy raadsadaan iyo dad waxaa jiraan walwalkii qabaan laakiin alxamdulilah they able noloshii way socotaa wax dhibaatee ma jiro walwalka aad iyo aad uu ameerika ugu badan yahay boqolkiiba 18 oo dadka 18 jir ka badan waxay qabaan walwal markii carruurta loo fiiriyo da'da oo 13 ilaa 18 boqolkiiba 25 qabaan walwalkaaseyto waxyaaba badan oo sabab noqon karaan walwalka dadka qaarkood waxaa jirta inuu generic yahay so inuu waxa yahay dhaxal waxaa dhici karta inuu chemical imbalance yahay so maskaxda kimiyadeeda haddee simnayn ama waxaa dhici karta inuu environment yahay so of course bii'ada ku noolnahay dhibaatooyin badan ay koos garay kartaa aan walwalka wuxuu ka mid yahay sabab issueska ama qofka la kulmi karto because of environmentgeeda so masalan qof hadduu dhaqaalaha aad ugu yaryahay walwal badan ay qabtaa dad oo qof haddii oo waxaa jirto dhici karto oo ehelkeeda maqan yihiin oo wadan rafaad ama dhib ay ku jiraan si uga fikiraysa inuu walwalkii ku bata dhici karto so marka waxa waaye walwalka dhibaatadiis maxay tahay especially markii dhinaca ilmaha loo fiiriyo haddii walwalka ilmaha laga daaweynin ama laga hortagin dhibaatooyin badan ay la kulmi karaan so maybe waxbarashadooda in dhinaca waxbarashada inay ku liitaan because walwalkaasi inta badan maybe iskoolka inay u gooyaan and it's very important inaa la ogaado that anxiety-ga it's not just marmar waxay show garaysaa especially ilmaha wax oo physical la dhaho physical way so like maybe ilmo oo waxaa arkaysaa cudurrada jirka ka tabanayaan like cunug oo maalin kasta caloosha xanuunaysa markuu soo kaco waayo caloosha cunugaas oo xanuunaysa so waxaa dhici karta inuu walwalkiisa anxietygiisa inay badan tahay oo markii subaxii oo soo kaco oo waqtigii iskoolka la gaaray inuu caloosha xanuunaysa ama matagaayo hunqaacayo so madax xanuuna ku arki kartaa qof kasta symptomkiisa ama calaamadahiisa way kala duwan yihiin laakiin qasab maaha calaamadaha inay calaamadaha maskaxda lay ahaadeen calaamada oo jirkay noqon karaan oo laakiin u sabab ah anxiety-ga so sida aan dhahay waxbarashadooda wax u dhimni karto waxaa kaleeto ee la kulmi karaan dad la dhaqankooda maybe inay dad ka haraan ama ka go'aan because you know comfortable ma ku ah inay ku dhex jiraan dadka ee dadka la dhaqmaan ama waxaa lagu arki karaa ilmo badan oo draago iyo khamri isticmaalan si ay anxiety-gooda oo la kobgarayaan so sidee loogu noolaa karaa adoo anxiety qabtid dadka say ugu dhex noolaa kartaa ee noloshaada hor ugu socon kartaa daris waxyaaba yaryar aa qaban kartid aa jirto of course waxyaaba oo maskaxdaada u samayn kartid so number 1 waxay noqon kartaa inaa horta ogolaatid inaa waxyaaba aadan controli karin inay jiraan wax kastama controli karaysid so adi inaa waxaa suubi kartid suubisid oo kadib ilaahay u dhaaftid midda koowaad waaye midda kale just dadaal and that's it waxa waaye dadka waxay rabaan dad waxaa jiraan wax kasta inuu perfect ahaado waaye imtixaankan intadaa boqolkiiba boqol ku keenin bas adduunyadu way dhammaatay bal 95 keentay alxamdulilah ogolaaw inaa waa dadaashe halahaasaa ka badi weysay way dhammaatay inaa meesha ku dhaaftid mid saddexaad waxa waaye maintain positive self talk so a lot of people waxa waaye qofka haddii masalan waxa uu toosi waaye anaa xune isdhahdaa anaa saan marka bedel fikradahaaga xunka ah ee waxaa ku bedeshaa fikrada oo positive ah you know like waa dadaalay boqolkiiba 95 aan keene dad badan oo iga liitaanaa jiraan yacni waxyaabo naftaada kheyr u sheeg waxyaabo fiican u sheeg naftaada canaanta ha ka badanin ha cariirinin because wax isbedelaya malaha other than in walwalkaaga oo bato which means imtixaanka soo socda ama wax soo socdo aa face gareen lahayd inaa kusii liidatid because walwalkaaseeto and midda ugu dambeysa ogaaw maxaa trigger garay horta maxaa cause garay anxiety-gaaga so sometimes waxaa jirto waxyaabo oo markii aan la kulanno anxiety-geena ay kor u kacayso so masalan waxay noqon kartaa is iskoolka markii aad joogtid may anxiety-gaaga badan tahay si qof oo shaqada kula shaqaysa markaa la hadashid may anxiety-gaaga kacdaa markii oo saaxiib camal hadal oo ku dhaho ma anxiety-gaaga kor u kiciyo inaa ogaatid waaye so maybe journal garee qor
markii anxiety-ga ku kacsan aad u kacsan tahay maxaa sababe maxaa cause garay si aa u ogaatid and then waxaa avoid garay kartaa ama ka fogaan kartaa waxyaabaha oo anxiety-gaaga kor u kiciyo so shantaas kooxaad aa subisid maskaxdaada caawinaysaa inay la diilgaraysa anxiety-ga waxyaabo kale waxaa jira jirkaagu samayn kartid sida oo cunto fiican inaa cuntid like balanced diet sokorta iyo junk foodka anxiety iyo depressionka way badiyaan so inaa iska yaraysid biyo badan inaa cabtid si fiican inaa u hurudid habeenkii 6 to 8 hours aa dhahaa adultiga inay hurdaan so make sure qof inaa hurdo fiican heshid habeenkii oo waqti mucayan aa qabtid aa seexatid and then waqti subaxii aa soo kacdid exercise is very important haddii aa physically active ahaa kartid it doesn't have to wax weyn inuu ahaado just 20 minute haddaa socotid xaafada ama treadmill group uu yaalo ku dhex socotid it will help hurdadaadan wuu fiicnaahaa maskaxdaadan wuu helbi karaynaa I hope anxiety-ga information about anxiety maanta inay idin faa'iidayso haddaa su-aalo qabtid about anxiety way badan tahay anxiety-ga noocyo kala duduwan waaye so هذا general أو هذا like specific anxiety هدا قبتت like panic attack هدا قبتت or phobia هدا قبتت you can ask سؤال هيك أما هيك سو قرر كرتا أما just email أي صوت كرتا أنا إن شاء الله ودلالنا إن كاري جواب نوحي أبوده وما تنتهين إيمانا ونعكسا ونصبر